Bismillahirrahmanirrahiim. Ku soo dhawaada shirkadda iibka iyo guryaha oo aad ka barateen inay idin soo gudbiso dhammaan wixii dhul ah iyo iib ah ee guryaha ah. Marka macaamiisha sharafta leh waad soo dhaweyneynaa sida ugu qiimaha iyo qaayaha badan leh. Waxaanan idin leenahay soo dhawaada. Maanta waxaan idin haynaa 5 guri oo qurux badan oo farta laga qaaday. Dhammaantood waa wada iib, waana aragtaa waa nashqad cusub, waana brand new. Dhammaan guryahan waxay ka kooban yihiin cabir ahaan midkiiba 10 mitir oo wajahada iyo 24 mitir oo dherer ah. Guri kastana waxa uu ka kooban yahay 4 qol oo jiif ah, fadhi iyo cunto, 3 suuli iyo deyrka oo 2 gaari galayaan, kitchenka oo dibadda ku yaala. Dhammaan guryuhu waa kuwo soo jiidasho leh, waana kuwo aad u khushuucayso marka aad gudahooda u gasho iyo markaad hor istaagtaba. Shirkadda dhistay dhammaantood waxay u dhistay si tayo leh, waa high quality. Haddaba macaamiisha sharafta leh waan soo dhaweyneynaa mar kasta iyo goor kasta. 5 guri saan kuu sheegayba cabirkoodu waa 10 mitir iyo 24. Saan hore kuugu sheegayna deyrka 2 gaari ayaa galaya. Guduhu waa 4 jiif ah, fadhi iyo cunto, kitchenka oo isaguna dibadda ku yaala. Markaaba waxaan insha Allahu tacaala aan doonayaa inaad idiin sii faahfaahiyo dhammaan guryaha waxyaabaha ay ka kooban yihiin. Markaa waxaan isku dayi doonaa inaanu mid ka mid ah haddii Allaha awoodda lihi qadaro gudaha u galno saynu faahfaahino. Okay, gurigan waad arkaysaa waana ka hadda ugu horeeya aynu gudihiisa u galnay. Si fiican baad u arkaysaa. Gurigan gudihiisa waxaa gelaya deyrka 2 gaari. Dhammaan guryuhu waa guryo aad u tayo badan, marmarkay dhulka waa u yaalaa waad arkaysaa. Jingadu way qarsoon tahay, taangiga xagga sare saaran waa 5 foosto. Waana guriga quruxda badan leh ee soo jiidashada leh. Tani waa daaradii weeyaan, 2 gaari ayaana gelaya. Gurigu waxa uu leeyahay luuqa aad arkayso oo ka go'an oo laydha uu ka qaadanayo, deyrka uu ka go'an yahay luuqu. Halkan waa suuligii 3aad weey. Waa kan guriga gudihiisu waa si fiican baad u arkaysaa. Waa kan gurigu halkan ayaa looga gelayaa. Waana guriga quruxda badan leh weeye aad si fiican u arkayso. Macaamiisha sharafta leh soo dhawaada. Tani waa daaradii weey, gypsum board ayaa ku xidhan waanaad arkaysaa. Isaga fadhigaba waxa ku xidhan gypsum board. Waa daaradii weeyaan taasi. Kani waa qolkii fadhiga oo si fiican aad u dareemi karto. Waana qolka waafiga gypsum boardku isaguna ku xidhan yahay. Marmarka gurigu aad ayuu u qurux badan yahay. Waana marmarka noocan yaala waa noocan weeyaan. Si fiican waad u arkaysaa waana dareemi kartaa. Macaamiisha sharafta leh mar kasta iyo goor kasta waan soo dhaweyneynaa. Sida ugu qiimaha iyo qaayaha badan leh. Kani waa kitchenkii weeyaan oo store yaro dambe leh. Waa ka kitchenku si fiican aad u arkaysaan waana dareemi kartaan quruxda badan leh. Kitchenka quruxda badan leh weeyii aad si fiican aad u dareemi kartaan. Guryuhu macaamiisha sharafta leh saad arkaysaan quruxda iyo sawirkoodu halkan ayuu ka muuqdaa waana dareemi kartaan. waan soo dhaweyneynaa mar kasta macaamiisha sharafta leh kuna xidhnaada shirkadda iibka guryaha iyo dhulka oo aad uga barateen guryo tayo leh iyo dhul aad u muhiim ah. Mar kasta iyo goor kastana waad soo dhaweynaa macaamiisha sharafta mudan leh ee nagu xidhan.